السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan ka hadlo Binance sidee saddexdan shay ee limit iyo market iyo stop limit loo isticmaalaa marka Binance la joogo. Marka Binance la joogo waxaad dooranaysaa coinkaaga search ba ku qoraysaa ADA kadib ADA USDT baa halkaa kasoo dooranaysaa, halkaas kaaga soo baxaya halkan imanaysaa. So waxaan ku bilaabayaa stop limitka. Stop limitka suuqa markuu halkaa joogo waa labaduba ama stop limit buyer ama stop limit seller baa helaysaa. So suuqan waxaan ka hadlaynaa marka hore qaybta stop limit buyga. Ka soo qaad suuqan inaa aaminsan tahay inuu yahay suuq kor u socda oo markuu gaaro 8350 inuu kasii kala firayn doono. Numberkaasaan ku qoray 0.8350 markuu gaaro suuqan suuq kor u socda weeye, anigu ana order sii dhigtaa. waxaa kaloo ku dhigaya halkaa 0.8352 numberka dambe waa ka weynaysiin because suuqu markuu kor u socdo numberka dambe mar walba the buy side waa inaad ka weynaysiisaa because waxay kor u socdo way sii ordayaan. So suuq kaaga fakan waa inaad numberkaa ka weynaysaa. haddaa hoosta ka geliso ama aad la ekaysiiso waxaa laga yaabaa inuusan orderkaada ku dhamaystirin. $1 baan ku qortay, intaas ii goysaa. markuu qiimaha gaaro $1,000 waxay ii goynayaan intaas. So that's the buy oo suuq kor u socda. suuqan baa haddana waxaan leeyahay markuu $2 gaado coinadan ay iibsaday inaan iska iibiyaan rabaa. $2 markuu gaaro inaan iska iibiyaan rabaa. So iyadana waxaan ku qorayaa stop $2 1.98 amountiga waxa weeye aan haysto waa 1000 coins ADA, iyaduna intaas noqonaya. So hadaad eegto numberkan uu ka yaryahay numberkan because waa suuq kor tagay oo sell macnaheedu hoos buu soo socdaa. suuqa kaaga fakano wax badan kaaga dhumin waa inaad iyadana wax yar u dhexaysiisaa. haddaa hoosta ka geliso ama la ekaysiiso waxaa laga yaabaa inuusan wixii oo dhan ku iibino 500 ama 300 uu ku iibiyo. waxaa kaloo iyadana la samayn karaa laba hab oo kaleba iyadana loo isticmaali karaa. waxaa loo isticmaali karaa stop limit hoos suuq inuu imanayo hoosta aan sii dhigto order. for example waxaan aaminsanahay inuu iman doono 8150. to 81 Binance waxaan ka rabaa in ii iibiso orderkayga sii dhigto markuu qiimuhu intaa gaaro. So mar kastoo wax iibsanayso numberka dambe ayaad ka weyneynaysaa numberka hore. 8150 8152 amountigaad coinska intaasaad helaysaa. intaasaa lagaa rabaa inaad dhigto 976 waa inaad dhigtaa meesha oo account-kaaga ku jirta si aad orderka u samaysato. waxaa kaloo iyadana suurtagal ah suuqan inaad stop loss ku xirato adoo isticmaalaya stop limit. So waxaan ku dhigayaa markuu gaaro 0.8140 0.8140 markuu gaaro ba stopkayga ii yaala. waxaa kaloo dhiganayaa 0.8138 markuu gaaro baan leeyahay stop limitka. suuqa hadduu halkaas kasii gudbayo stop limit stop loss way. stop limit stop loss macnaheedu waxa weeye yuusan ila sii daadan, stop loss baa igu xiran. So 8140 marka stop losskaada waxa weeye waxaad dhigatay. hadday kii hore wuxuu waa take profit, iminka waa stop loss. stop limitkan iminka selka dhinacaan ka sameynayo waa stop loss. stop limit stop loss. numberka hoose waa uu ka yaryahay numberka kore. waxaad gelinaysaa how many coins aad haysatay, intaasoo $1 baa laga rabaa inaa USDT kugu jirto si loo generate ama loo sameeyo orderkaaga oo lagu diyaarinayaa
sel baad dhigatay, orderkaaga dhigatay, meel buu ku yaalaa. waxaa kaloo jira wax loo yaqaano market. marketku isaga wax kale maaha, ama sel ha ahaado ama buy ha ahaado, dee waxaad kale waxaa weye wixii qiimaha joogo isaga waa easy, waad gelinaysaa lacagtaad gelinaysaa sel. iminkana halkan waxaan gelinayaa coins 1000 coins ba ii yaala. market iga iibi, markiiba iga iibi, suuqan waa ka baxayaa, sii daadanaya. waxaan waa nacay, waa intaas. limitkuna isaguna waa ka yara wax yar buu marketka ka yara dhib badan yahay, laakiin dhib male. stop limitka ugu yara adag hadaa fahamtay. kanna waxa ma ahan, kan waa fahmaysaa. kan limitka waxa weeye suuqa markuu gaaro 0.8150 please ii iibi. orderkaada generate garsanaysaa, waxaad dhiganaysaa wixii lacaga ku yaallo $1,000. intaasay ku noqonaysaa. waa dhigatay, qiimaha markuu halkaa gaaro waa lagu iibinayaa. ama waxaa oran kartaa qiimaha markuu gaaro 8350 ii iibi. labada waa dhigi kartaa, markaa waxaa aaminsanta suuqu inuu sii soconayo oo suuq soo kala free sii socdo. markana waxaa aaminsantahay, markii horena waxaa aaminsanay suuqun halkaa dhaafayn. limitka halkanna waa sidan oo kale. waxaad leedahay markuu gaaro $2 Cardano iga iibi, oo waa profit take, faa'iidadaada ka qaadatay. waa bt waxa loo yaqaan, profit taking way. waxaa kaloo ka dhigan kartaa limit ah inuu suuqa hoos kula sii aadin, inkastoo stop limit ahayn isagu. laakiin numberkaad dhigto, hadaad numberkaa ku iibi, waxaa laga yaaba laakiin badanaa stop limitka ayaa lagu qortaa. haddaa stop limit samaysanaysto, stop loss, stop limitka isticmaal. limitku waxaa weeye waa take profit. buyga laakiin labada dhinacba waa ku dhigan kartaa. so limitka waxaa u isticmaashaa oo keliya markaad take profit dhahayso halkaa ka qaado. ama OCO-ga, cajaladii OCA-ga iyadana daawo, si fiican baan u sharaxnay. I hope in la fahmay oo cajaladani ay wax badan idiin, aanu videogaan duubnay wax badan idiin bayaamiyey. haddii aad ka heshay waxaanu sharaxnay, please noo taabo subscribe-ka. suulkana okay, shaqo wacanbata nagu oro. waana mahadsantihiin. ilaahay khayr hadi siiyo. ciid wanaagsan, ramadaan wanaagsan. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.